السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي قالي ميل كستوda dunyada ka joogta ma in salaamaya fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysan soo booqatay channelka subscribe inoo saar sidoo kale video-ga like gare oo share gare oo la wadaaga saxabtada qaaliga waa aniga mar labaad idinku soo noqday waxaan idin wada waa barnaamijkeeni aad horeba iiga barateen ee toddobaadkii social media kaasi oo aan ku soo bandhignaa ama ku qaada dhigno amba fikirkayga iyo aragtidayda aan kaga dhiibino hadba waxa social media maanta ama toddobaadka dhex hadaba caaw maxaan idii hayaa waxaan idii hayaa laba qodob run ahaantii qodobka koowaad hadii aan ku horeeyo hore in yar oo kaliyaha lagala baxay oo 15 cisho inta la waayay magaalada Muqdisho dhexdeeda kaliyaha lagala baxay run ahaantii waa wax aad iyo aad looga murugoodo ama waa wax aad iyo aad looga naxo tacadiyada iyo dhibaatada loo geysanayo hablaha iyo caruurta yaryar ee maalin walba iyo habeen walba iyo goor walba aynu maqlayno in la yiraahdo inan baa la kufsaday inan ba ilmo yar baa kaliyaha lagala baxay iyo ilmo la waayay run ahaantii dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa oo u diraynaa fariin ah inay arrinka ay wax ka qabato oo dadka waxyaabaha ku dhaqmaya kulay dadkan hay'adaha fangarayaan u malaynaya wasay ila tahay inay qabato oo maxaa la yiraahdaa gacan bir ku qabato oo run ahaantii wadanka yare masaakiinta ee iska dhibaataysan ee dagaalku ku socdo ayaaba iyaguna kaga faa'iideysanayaan waxa rajaynayaa inay dawladda iyo shacabku gacan intay ka wada geystaan ay ka qabtaan maalin walba ilmaha yar ee kaliyaha lagala baxayo caruurta dhibaataysan iyo hablaha hadiya habeen la kufsanayo run ahaantii waa wax aad iyo aad Soomaalinimo iyo Islaamnimada looga xumaado loogana qiiroodo boqolkiiba boqolna dadka waxa ku dhaqmaya in sharciga islaamka la hor keeno ay loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan oo laga hawrgalo balse laakiin Soomaaliin walba hadii aynu halkan ka sheegno ilmo yar baa la qashay amba kaliyaha lagala baxay oo haddana dawladda ay waxba u qaban laaday oo aabba ama hooyo oo Soomaaliin walba aynu aragno run ahaantii dhibaatadeeda ay leedahay waana wax aad iyo aad looga xumaado balse laakiin waxa wax ka qaban karo dawladda iyo shacabka Muqdisho oo iskaashada iyagoo maxaa la yiraahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan waxaan ku riyay cadawga iyo nacabka iska qabta iyo wax caruurahooga saa u galayaba hadii aan kaga imaado qodobkeeni koobaad run ahaantii qodobka labaad ee idii soo gudbin doona waxa weeyaan fannaankeeni Qamar Suugaani ee ku maqnaa magaalada Muqdisho oo run ahaan waxa weeyaan in magaalada Hargeysa iman doono isaga iyo Cabdi Dhaanto run ahaantii waa wadankaagii nabad kaalay ayaanu ku leenahay waanu ku soo dhaweynaa boqolkiiba boqol leenahay waa wadankaagii waa dadkaagii ku jecel boqolkiiba boqol soo dhaw waanu ku soo dhaweynaa gacmo furan iyo qalbi furanna waanu ku soo dhaweynaa sida qaaliga waxaan inta idin ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni waxaan idin leeyahay intaynu kulanti dambe xiiso la kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.